صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 kusoo dhawaada barnaamijka afur walaal بشهر رمضان صوم 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 barnaamijkan ood allaah nooga barateen inaan idinku soo gudbino bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa kaalmo afur ah lagu gaarsiiyaa dadka danta yar ee u dhashtay qoomiyadda Eelo sida agoomanka maatida waayeelada wiilada ah iyo garoobada kaalmada mudan ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا maanta waxaa soo qaadanaynaa mid ka mid ah muxsiniinta u dhashtay boqortooyada qoomiyadda Eelo ee lagu magacaabo ganacsade Liibaan Maamu Uren kaasoo xil iska saaray afurinta ilaa iyo 24 qoys oo ku nool degmada Buur-Hakaba gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya kuwaasoo ka mid ah dadka danta yar ee u baahnaa in la afuriyo deeqdan oo ka timid ganacsade Liibaan Maamu Uren ayaa ka koobneed bur bariis sonkor timir iyo baasto ayaa waxaa loo soo wakiishtay taliye Yacquub Garaad Mursal kaasoo si mas'uuliyad leh ugu wareejiyay maatidii loogu talagalay afurka afrin liibna afrintaas oo qoyska dhanka boqortooyada qoomiyadda sagaalka eyle qof ka mid ah oo hanin wakiilade inii uu nasiina dadka tabaalaysan sida garoobyada iyo neeto agoomyada sida oo wiilaabayaasha dhankaas oo ha ka eedaas tumila makiil bar bariis ah tumila makiil bar bariis ah hal timir ah iyo tumila makiil bar oo aragteeda bur ah iyo nay kartoon oo sadexlo oo saliid ah habkan oo tumila maalbar tumila madan ibarkan tumila ibarkan iyo reeto badal timir oo hal qoys aado qoyska sito oo unanka tala ilmo awaanto mankile lanka oo wiilaabaha ah lanka oo aragteeda garoobka ah lanka oo danyarka ee meel walba sheesa oo salahay taasto oo afrintaas oo deeqi Liibaan Maamu Uren dadka tabaalay kuwaalidi uni biina oo nasiina dadka tabaalaysan si us aragteeda anga sadaqaysada walaalnashay way balana walaalkeen meeli deeqdan hak usaka bi bedelshe walqeyqow inii usilaahinka شهر رمضان صوم 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 rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga soo wariyay xadiis dhahayo ninkii afuriya qof sooman waxa uu leeyahay ajirka qofkaasi sooman ee uu afuriyay iyadoo aanay waxba ka nusqaamaynin ajirka qofkii soomnaa ee uu afuriyay faradka ooga fuqarada sakadaasiya haddaba diinta maxay ka qabtaa in masaakiinta qaraabada ah sadaqo la siiyo calayhi salaatu wasalaam ayaa laga soo wariyay sadaqada qaraabada la siiyo waxay u dhigantaa laba sadaqo mid waa ajirka sadaqada midda kalena waa xiriirinta qaraabada taasoo cimriga iyo camalkaba barakayso ugu dambeyn dadkii la guddoonsiiyey afurka ayaa ugu mahadceliyey walaalka u soo dhiibay afurkan iyagoona aad u bogaadiyey deeqdaani isku soo wada duuba barnaamijka lagu afurinayo dadka danta yar ee u dhashay qoomiyadda Eelo ayaa ahayn markii ugu horeyso iyadoona bil walba ee ramadaan uu horgalo afurinta dhowr qoysas ee ku kala nool gobolada ay degto qoomiyadda Eelo aragdeeda afurintii walaalkeen Liibaan Maamu Uren dadkan ka deegi qaasatan boqortooyada qoomiyadda sagaalka eyle haan deegti haddana nin wakiiladii walaalkeen Liibaan Maamu Uren aniyoonayto walaalkay daadiri raaman sagaar iyoonayto walaalkay baroor ama saasi diubulo len kasaw ibada kimay badirsaneed kimila makiila bariis kimila makiila oo bur iyoonayto sidii sariir iyoonayto kiila timir wayba sinkrajana inii lan walba meel almeelihooga dayda doona walaalkeen Liibaan Maamu Uren si walbana leen caabi doona walaalagan aragde oo danyarta insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala